13 jir bil walba mushaar ahaan u qaata 1.25 milyan. السلام عليكم داوديال magacaygu waa Mustafa Cabdullaahi Maxamed ku soo dhawaada Doohal Official waxaanu halkan idinkugu soo gudbinaa barnaamijyo u badan arrimaha bulshada haddaba sida hore aad ciwaanka uga aragteen 13 jir bil waliba mushaar ahaan u qaata 1.25 milyan oo dollarka Mareykanka ah waa hadda dollarka Mareykanka ma aha Soomaali haddaba wiilkaasi xaguu ka soo jeedaa waa kee magaciisu waa ayo halkee uu ka shaqeeyaa ama shirkadee uu ka howlgalaa shaqadiisu maxay tahay Temni Bakshi su'aalahan aan idin weydiiyay waxaad kaga bogan doontaan muuqaalka oo dhameystiran adigoo daawada haddaba wiilkani waxa lagu magacaabaa Temni Bakshi wiilkan waxa uu dhashay 16 Oktoobar 2003 waxa uu ku dhashay magaalada caasimadda ah ee New Delhi ee wadanka Hindiya caasimadda u ah wiilkani waxa uu dhalashada labaad ka haystaa wadanka Koonfurta Ameerika ku yaala ee Canada halkaasi oo uu ku soo qaatay waxbarashada uu heerkan ku gaaray wiilkani waxa shaqaaleysiisay shirkadda Google waxa ayna shaqadiisu tahay computer scientist waxa uu haatan ka howlgalaa shirkadda aadka u weyn ee Google-ka waxa uu qaataa sida aan hore idinkugu sheegay mushaar dhan bil waliba 1.25 milyan oo dollarka Mareykanka ah haatan waa 16 jir laakiin markii ay shaqada siinaysay shirkadda Google waxa uu ahaa da'da 13 jirka waa YouTuber buugaag badan buu soo saaraa waa madadaaliye inta badan bulshada u soo bandhiga waxyaabo ayaga u baahan yihiin oo ku saabsan dhanka tiknoolajiyadda waa hagaag daawadayaal intaas maanta waxa inoogu eg xalqad yar oo aanu ka diyaarinay 13 jirkaas lacagta inta la qaata magacaygu waa Mustafa Cabdullaahi Maxamed janaalka aad daawaneysina waa Doohal Official waa hagaag daawadayaal haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato janaalkan fadlan barta hoose ee guduudan taabo gambaleelkana dhashsi taasoo mar walba ku sahli doonta in muuqaalada aanu soo dhigno marka ugu horeysa si dhaqso adiga ay kugu soo dhacaan mahadsanid